xafladan oo lagu sagootinayay qaar kamida mas'uuliyiinta maamulka Soomaaliyeed ee Khaatumo State dhanka kalena loogu hambalyeynayay qaabka madaxda maamulkaasi ay xilka isugu wareejiyeen ayaa waxaa si heer sare ah u soo agaasimay ururka dhalinyarada East Africa ee ka soo jeeda deegaanada Khaatumo. munaasabadan oo ka dhacday hoolka shirarka Madiina Mall ee magaalada Nairobi ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin, musharaxiin iyo jaaliyada maamulka Khaatumo ee dalka Kenya. waxaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay wasiirka iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ah ee maamulkaasi Dr. Xuseen Saleebaan Dhagaweyne wuxuuna dhalinyarada kula dardaarmay inay wax bartaan waqtigoodana ka faa'iideystaan. waxaan la dardaarmayaa dhalinyarada waayo aragnimadaydi macalinimadu wixii ay siisay waa idin sheegaya da'dan aad ku jirtaan waa waqti aan dib idin soo mari doonin hadda waad ku jirtaan oo garan maysaan laakiin 20 sanadood ka bacdi baad garan doontaan inaad waxyaabo badan qabsan kara lahaydeen maanta in badan baa ragaalkaysu soo taagay idin sheegeen oo idin yiraahdeen war wax barta chance golden ah oo dahabaad haysataan haddaydan muddada ka faa'iideysan you will regret it for the rest of your lives waayo dib waqtigu isu soo duubi maayo lidin soo celin maayo haddaad maanta wax baran weydaan oo waqtiga ka faa'iideysan weydaan weligiin dib idin soo marin mayso waa waqti idin dhaafay oo aydan dib soo qaban doonin waxaan jeclaan lahaa inaan idinku idhaahdo war arrintaa ka faa'iideysta dadka hormuud baad u tihiin nin la sugayo adna yaad sugi war dadka la sugaya waa idinka fahma dawladdu wax ma qabato odayaal wax ma qabtaan hooyooyin wax ma qabtaan dhalinyara wax qabata dhalinyara wax fulisa dhalinyara wax habaabisha dhalinyara dol xoreysa dhalinyara wax ka dhigta dadkeeda dib loo rida hadda nin caraba isna inta in la eegay laqad hannatni wa qawassatni 99 wa itnatan sagaal iyo laban jiray waa boqol iyo gujir war maana ay diranaysaa xabada adna waxa doonaysaa inaad halka fadhido hayeel maayo ama wax baro oo iigu maqno wax qarasho iyo wax soo kororsi ama ila keen oo kaaga qorgeyla qaado. sidoo kale wasiirka madaxtooyada maamulka Khaatumo State Mukhtaar Ibrahim Xabashi oo kamid ahaa mas'uuliyiintii loo sameeyay xafladan sagootinta ayaa halkaasi ka hadlay. runtii dawlad baynu samaysanay la yiraahdo Khaatumo dawladdu micnaheedu waa dawlad lagu dago weeyii dawgii baynu haynaa waana degi doonaa waxaan doonaynaa waynu gaari doonaa insha Allah bismillaah runtii xoog laynagu qabsan dadku waxay u haystaan in xoog laynagu qabsaday siyaasad baa laynagu qabsaday siyaasadda qorigana siyaasadda hoggaamisa haddaadan siyaasadda toogan qorigaagu ma dhacayo weligiin bay su'aala haddayna siyaasadda ku horeyn oo inaan iyada toogan qorigeen meel gaari maayo waayo siyaasiyiin baa laynoo qabsaday caalamka wax laga dhaadhiciyay wax badan oo jiro oo been oo laynaga sheegay oo aan jirin baa jira waxa waa inaynu soo xaagnaa markaynu taagaadno baa qorigu dhacaya. dadweynihii kale ee munaasabadaasi ka hadlay ayaa madaxda maamulka Khaatumo u soo jeediyay dardaaranno kala duwan waxaana hadaladoodii kamid ahaa sidan. dadkeena waaweyn ee liitanayeen ogaana wax looga baahan yahay anu loo bilood hadda dhulka soo joogo dhulkeena totally waa isbedelay intiina halkan joogta waxaan aaminsanahay haddaan maanta u wada noqono inay wax badan ka bedeli lahayn waayo dad qurba joogo kala tiin wax badanna waa leeyihiin marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa qofkii aan maanta dan u joogin ama waxbarasho hadda u joogtaan maxaa at least fasaxina inaad dhulkeena ku soo lumisaan marka nimayow aynu dadaalno aynu hadalkeena iyo waxeena ka dhabeeno qof walbowna mas'uuliyad baa tahay you are an agent of transformation macnaha waxaa tahay qof macnaha isbedel keeni kara marka tag guriga hooyada aabaha walaalka walaalada u sheeg saaxiibkaaga kuugu dhow. sidoo kale waxa halkaasi gabayo ka soo jeediyay abwaanin ka soo qayb gashay munaasabadaasi. haddii kibirka guul lagu helo iyo goonyo iyo qalmo giib iyo higleyr iyo maxaa ina ammaan gaaray maxaa koofil gagidii dhigay ee gooyay midigtiisa gumaysi maxaa koofil gagidii dhigay ee gooyay midigtiisa gumaysigii arlada haysan jiray guudka ka caseeyay
garaad xumaa ku qaadee tashigu waa ku gees maraya gadaal ma uga noqon meel xun bay gacantu kaa taalle haddii kale midaan ku gantirshaa goxasho weyn reebta intaasaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo waxaan kale oo rabaa maadaama dee iminka madaxdii iyo bulshadii iyo kollay dee xagga ra'yi ahaantana inaan kaga qayb qaato taas lafteeda aada ugu dheeraan maayo maadaama wasiiradii iyo madaxdii iyo dee hadda ay dalkii ku jeedaan oo baxayaan masti dee kollay in lala sii ballamo oo tusaale la siiyaa way fiican tahay marka waxaan leeyahay madaxweyne biindhow arlada boodhka ka afuufa madaxweyne biindhow arlada boodhka ka afuufa daarihii basaasiyo dhulkii binada soo saara daarihii basaasiyo dhulkii binada soo saara baylaahda ka dhowr yaan ibliis kaala hoos bixine namar haddaynu midownayo maamul fiican la yeeshay oo khaatamo ismaqiiqday oo mandaydkii la siiyay oo caalamkii la maqsuuday ilaahay baa mahadaale oo gabayaan ku mashquuliya murti wayga diyo namorgimayo qalbigu way madeexaya soo dhan ku soo ururta dhalinyarada inay wax barato oo shaqaysato ilaahay caabudo baan kula talinayaa qoladan maamulkana de maxaan idhahnaa cagta mariyana ma ka daayo cagta marinine bal saabayn inta wax samaysaan waxaad isku daydaan mujtamaca reer Khaatamo in la wacyi geliyo qoladan maamulka dee magacooda oo ku filan magacyadooda mas-uuliyiinta xafladan lagu sagootinayay ayaa la filayaa in ay caawa u ambabaxaan gudaha dalka Soomaaliya. Suleekha Cabdilaahi Xirsi, Somali Sat TV, Nairobi.